dadweynaha ku dhaqan deegaanka Carragaranuug oo 10 kiiloomitir ugu beegan dhinaca galbeed ee magaalada Boorama oo muddo ka cabanayay dhinaca biyo la'aanta ayaa maanta kulan la yeeshay madaxda iyo mas'uuliyiinta gobolka Awdal iyo degmada Boorama. dadweynaha ku dhaqan deegaanka Carragaranuug oo balay biyooda ay ka cabi jireen oo noqday mid aasmay oo isla markaasina ay ka buuxsantay carro taasi oo ay waayeen dadka deegaankaasi Carragaranuug ku dhaqan wax balaygaasi dib ugu dhooba qaada. arrintaasi oo ay cabashadoodu lu kulahayd ayaa cabashadoodii waxa ay u gudbiyeen mas'uuliyiinta iyo madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolkan Awdal iyo degmada Boorama. dadweynahaas oo deegaankaasi Carragaranuug kulan maanta kula qaatay barasaabka gobolka Awdal iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa waxa kamid ahaa cabashadooda iyo arrimaha ay ku cabanayaan dadka deegaankaasi Carragaranuug ku dhaqanay. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad. waad mahadsantihiin walaalaha iyaga ka soo qayb galay baahidayada iyo cabashadayada ee noo yimidayo balagan waxa la yiraahdaa Carragaranuug 12 beerood baa ka cabiyeysay waxaana la bilaabay oo la qoday 80 15 sano guuyo jiilaas ma dhibayn waan ku baraadnay dad iyo dunyaba intii ka dambaysa wax dayactir oo hagaagsan lama helin biyo la'aan baa loo go'ay abaarina way noogu biirtay ilaahay uun bal xaqiisa laga nool yahay raadka iyo biyahana annaga imika biyaha naga qalsan booyad baa la soo kaxeeyaa booyada foostada waxa laga siiyaa 12 kun yaa naga siiyaa halaha iyo dadka iyo dunyada yoomkii walba 12 lamana hayo holo ma irmaano oo abaar baan kala gurisay waxa noolina waa wax iib kala male wax meel tagayo arooriyo male wax la iibsado male wax la maalo male ilaahay uun baa xaqiisa dad iyo dunyaba dadkii balayga ka cabayay 12 beelood ahaa waxa daba leenahay dawlad iyo hay'ad wax noo qabata ma arkay ninkiisa islaam ah ama gobolka Awdal u dhashay ama dabad ha joogo ama doxa joogay waxaan ka codsanaynaa biyo illa noo qodo ama riig haddaan nahay reer Carragaranuug oo odayaasheen nahay beeshan dadka dabagaras odayaasha waxa waxaanu doonaynaa in dawladda ka codsanaynaa in hay'adaha ka codsanaynaa aan la xiriirno dadka aan sheegayno ee qurba joogga aan toos ula xiriirno waxaanu ka codsanaynaa oo waliba dawladda ku adkaynaynaa inay indhaha ku soo jeediso hay'adaha oo ay tusto dadkan sidii balaga loogu qodi lahaa biyo lagu waraabin lahaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi gudoomiyaha waxaan leeyahay dawladda naga gaarsii waa dadkan inay baahi biyood halkan maanta u soo urureen oo u joogaan haddii inta waqtiga roobka ka hadhay laga shaqayn waayo biyo dhaamin la heli waayo waxa weey dadkan bataatan dadku hadduu afkiisa la cararan xoolaha way u dhamaanaysaa inta ka nool gudoomiyahana isaga afka iyagii ku hadli doona wixii anagu aan qaban karnana isaga sheegi doona. salaamu calaykum waraxmatullahi madaynta leego waxa uu timid halka waa balayga Carragaranuug waa biyo waxaan leeyahay hadduu roob da'ana way haraadan yihiin maanta hadduu qaadsan yahayna way haraadan meeluu qabata hadduu roobku doo maanta lama hayo kolley waa ka aroor hadduu roobka ay maantadaa tiixo meeshii u qaban lahayd lama hayo balayga Carragaranuug waa kaa aasmay intuu qodnaa waa la garanayaa inta haddii la yidhaahdo maanta halkuu joogana waa la arkayaa waxaan leenahay intaan daruurtu tiixin balaygu intan in biyuha yari joogsan jireen ma qodmaysa in ku dhow qodmaysaa jirte ha loo qodo gacanta ilaahay baan horta ilaahay baryanaa ilaahay nimcadiisa hayno oo degdeg hayna siiyo oonkii haraadkana isaga biyo ilaahay haynaga biyo walaaleen iyo waalidoogina Allah u naxariisto balaygu waa ka naga baabay nagaas waxtar wax dawladda iyo wax hay'adaha kale oo maanta aan waxtar ka haysano oo balayga noo qodayna ma jirto riig haddii la qodo halkaa la yidhaahdo riig baa laga qodayaa haddii la yidhaahdo riiga ninka beertiisii laga qoday unbaa yeelan hase haatee waxa weeye waxaan ka codsanaynaa dadka iyaga qurba joogta ee walaalahaya iyo culimaa diinka dawladda maxay hay'adaha Soomaaliland in marka u horeysa haddii naloo karayo balayga naloo qodo kan naloo qodiyaa ku kala naloo qodiyaa waxaase maanta aan ka codsanaynaa ee noogu xuni waa biyo dabadeed riig naloo qodo marka dambe waxa la yiri Soomaaliya tiraanin qoyaan biyo iskama dhawro saaka subaxan saaka haraad baan u kala dareer wax alla wax meesha yimiday ma jirto inta ku maqan xoolo ku maqan
iyo inta وأنين هالكن نلا جوجا بالله جو كله عوضن بود داونيا عوضن بو وحى مارت هذا نقول لأنه أيوة داوني بمقليان دولة دوحن مقليني إن بدن مقلا ريق فضل بدن بالله كاني وكويت بحسي قدر بحسود دولة بدن بحيان لكن ولي ريق مريق قبل كان لكانوا معه مو يعني اللي بحريبه مثل وش جاي يحقق بوراس ما عنده يدون مقلاي لكن ريق جاسنا وحكيها الله حق ما نقولنا ماشي هو ماشي دولة الصومال ده أساسي وين بورم إن الدولة دو أدق لها توي أنا قيبتي عن لهين أي كان تو الرجع يعني مرة ثانية هدي الله قيبين الرجع بدن فرب بدن وين إن الله كان ويا الدولة تماضى وهي قلب وسارد قرشين تأيي وسارد معلن تبيها أيه وحودني مادام ويوضع كيجان يجعل لقربا مسؤولين ويان sidoo kale barsaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile ayaa ka jawaab bixiyay arrintaasi iyagoo dadweynaha u ballan qaaday inay wax ka qaban doonaan cabashadooda la xiriirida dhinaca biyaha ee ku saabsan in dib loo dhoobo qaado ballaygaasi ay ka cabbi jireen deegaanka Carragaranuug ee ka tirsan degmada Boorama waxaana ka mid ah hadallada labada mas'uul ee ay u ballan qaadeen bulshada ku dhaqan Carragaranuug halkana waan ku ogeysiinaynaa inay baahidiina inay jirto oo aan idinla aragnay xukuumaddana waan u gudbinaynaa waanan hortegaynaa wixii laga qaban karo hay'adaha caalamka sidii ay loo riixi karay xukuumaddu u riixi kartana waan kala hadlaynaa nin qoyan ninna korkiisa biyo kama dhawro runtii waxaad qabtiin annaguna waan qabnaa tanna mucaawino fiican bay tahay iyo hadal fiican iyo dhawaaq fiican iyo aragti fiican de ilaahayna aynu barino madarka ilaahayna aan weydiisano dad Soomaaliyeed tahay inay dadkan walaalahooga ay isdirka wadaagaan ama dhalashada wadaagaan u soo ajiibaan codsigoogaasi oo maaragtay ama waxa dhulka lagu dhoobo qaado waxa riig lagu qodo intaba intii ay ka gaarsiisan karaan ay tamartoodu tahay inay soo caawiyaan baan iyagana ka codsanay si kastaba haatee cabashada biyo la'aanta ee ka soo yeedhaysa deegaano ka tirsan degmada Boorama iyo meelo kale oo ka tirsan gobolkan Awdal ayaa ku soo beegmaysa xilli ay midowga Yurub ku bixiyeen dhaqaalihii ugu badnaa wax ka qabashada biyo la'aanta ka taagan Somaliland deeqda faraha badan leh ay bixiyeen midowga Yurub oo aanay waxba kaga soo hagaagin gobolkan Awdal gaar ahaan degmada Boorama iyo meelaha kale ee cabashadu ka jirto ee biyo la'aanta ee ka tirsan gobolkan Awdal Hashim Sheekh Cumar Good Somali TV Boorama